magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo caga dhigtay diyaarad sida Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo ah nin ka tirsanaa sanadihii la soo dhaafay ururka Al-Shabaab. Ninkani ayaa la sheegay in uu soo dhiibay kadib markii ay xagga iyo shabaab uu kala kulmay dagaal iyo handadaad aad u fara badan. Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa waxa uu ahaa nin aad iyo aad ugu soo dhex shaqeeyay ururka Al-Shabaab in badan, balse hadda waxa uu ka mid yahay dowladda ayuu gacanteeda ku jiraa. Dowladda ayaana waxaa goordhow laga sugayaa sida ay ula dhaqmi lahayd ninka isa soo dhiibay ee lagu magacaabo Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa sheegay in uu Al-Shabaab ka baxay, balse shabaab ayaa waxa ay soo saartay miis ay ku caddaynayso in uu 7 sano ka hor ka baxay ururka Al-Shabaab. Laakiin warkaasi ayaa ah mid aad iyo aad dadka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka ay dowladda maamushay aad ula yaabay markii la sheegay in Mukhtaar Robow ay 7 sano ka hor ka baxay tiimkooda lagu magacaabo ururka Al-Shabaab. Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa hadda ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana